barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo uu heliyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag gaashaan la dhexe Saleebaan Ducaale Warsame Ubax la dhagacade iyo badiba isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sanaag oo maalmaha safar ku gaala bixinayay degmooyinka gobolka Sanaag ayaa maanta galinkii dambe kulan balaaran oo lagu xoojinayo arrimaha nabadgelyada ku qabtay magaalada Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag kulankan ayaa daaranaa dardargelinta iyo xoojinta nabadgelyada waxaana dhankooda soo buuxdhaafiyay goobta kulankan lagu qabtay maamulka degmada Garadag waayeel waxgarad iyo shacab weynaha reer Fadhigaab ugu horeyn waxa hadalka qaatay maayirka degmada Garadag maayir ku xigeenka iyo waliba xogayaha fulinta dowladda hoose iyo waayeelkii waxgaradka reer Fadhigaab oo warbixin guud ka siiyay barasaabka iyo waftigiisa xaaladda nabadgelyo ee deegaanka Fadhigaab aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii shirkan halkan maanta ka dhici doona shirkan oo laga hadli doono arrimaha adkeynta nabadgelyada ee deegaankan aynu joogno waxaan leenahay marka hore mudane gudoomiye iyo mudanayaalba deegaanku marka hore waa nabadgelyo runtii waad arkaysaan dadku si ay u joogaan insha Allah taala waxa weeye wax dhibaato ay hadda kama jiraan dalkii oo nabada leedi ka sugayay waxaan ku soo dhawaada iskaliya laba ku soo dhawaada inta kadib hadalkii hore maayarka dhameeyay nabad weeye dhulku deegaanka nabadda baahiyaadka kala gedisan maadaama uu soo kaxaystay wasaaradihiisii isuduwayaashoodii waa isagoo ay maanta gudoomiyuhuna u yahay gudoomiyihii koowaad ee wasaaradihiisii isagoo garbihiisii ku duulaya inuu ugu yimaado deegaanadeennii ka dhaxaysa waa reer Fadhigaab iyo jiidar isku noolka iyo deegaankeenna ilaahayna waxaanu ka baryaynaa kastoo waayeelow ka shaqay sida inankaagu waxbarashada iskuulkiina waa xidhaya sidaan qabo gurigiinni martida waxa weeyaan markaa aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa tayaqabadkin doonaan wada shaqaynayno intuu isagu diyaan aagan wuxuu ka dhaceen baan wada shaqaynaynay haddii alba kuureysi wanaagsan baan wada shaqaynaynay magaalada Fadhigaabna waa nabadgelyo dadkeeda gacmaha haysta taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag gaashaan la dhexe Saleebaan Ducaale Warsame Ubax la dhagacade ayaa kula dardaarmay shacabka reer Fadhigaab inay ilaashadaan nabadgelyada lana shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee ku sugan goob waxaan leeyahay hal si adkeeyo nabadgelyada waxaan leeyahay cuqaashi iyo gudoomiyaha tuulada Fadhigaab halka hadlay ee baahiyaadka reer Fadhigaab hadday waxbarasho tahay iyo hadday base bilays tahay iyo hadday baahiyo kala tahayba inta Fadhigaab ka dhiman reer Fadhigaab oo idinka ka dhimanay balaayo kale meel ugama iman idinka u sababa in ilmihiinu saamaanta wax bilaa waxbarasho noqdo in buluusku waxaan dhacday reer Fadhigaab waa ogeydeen dhacdadii ugu horreysay Fadhigaab ka dhacday halkan baan aniga gudoomiyuhu nimid bartaa ee garoonka aynu taaganahay baanu joognay nabadgelyadaanu xakamaynay ilaahay ka sokow aniga gudoomiyihii hore iyadoo ciidanka buluusku joogo ayaa dagaalkii dambe dhacay askarigii buluuska ugu qaalisanaa isagoo garoonka ayna taagano dagaalku soconaya dagaalka gurmadkan ceerigaaba ka soo gurmaday iyadoo xabaddu soconayso gudoomiyaha gobolka Sanaag safarkiisana wuxuu salka ku hayaa xog ogaal noqoshada xaaladda dadka iyo dunyada ee degmooyinka gobolka Sanaag waxa uu safarkan wuxuu saaka gabagabadii barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo hadalka qaatay ayaa bulshada reer Fadhigaab u sharaxay muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu oo fikirkii anigu marka hore aan haystay meelaan cidiba isku imanay baad markii hore tagaysaa baan islaa laakiin dadkii hadlaaba oo nabadda diyaar u yahay oo horumar igala hadlaya ayaad maxaan ku dhaday ku hadlayseen taana aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin haddaan dib ugu noqdo ujeedkayga socodka safarkaygu daaranaa waxay ahayd laba qodob mid waxay ahayd isbarasho inaynu horta bal isbaranno tan labaadna waxay ahayd nabadgelyada ayay ahayd ta saddexaadna in xaaladiinna aad ku sugan tihiin ee horumarineed loo kuurgalo ayay ka mid ahayd weliba safarkaygani wuxuu ugu kow ka ahaa Fadhigaab buu lambar 1 ah wuxuu ugu ahaa waxay ahayd maalintii ciidanku baxay habeenkii markuu ciidanku tagay baa waxa la igu yiri ma subaxnimadii dambe qolo qoriyay sidee magaalada agteeda fadhiday
sidaa awgeed warkaasi ama run ha noqdo ama been ha noqdo markaasaa waxaan idhi war waa dadkii hore loo gaadhaa dadkii hore ha loo gaadho wax loo sheego. cabdi salaad jaamac telefishinka sahan degmada Garadag.